kusoo dhawaada maantay oo ah 58 sano xorriyadda Soomaaliya ee qaadatay kowda Luulyo way nagu weyn tahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta Toronto la idinka daawanaya caalamka oo dhan Canada waxay u sanadkii la soo dhaafay ay xirtay 150 sano maanta waxay jirtaa Canada 151 years viva la Canada Canada ha noolaato long live Canada long live Somalia viva la Somalia Somalia ha noolaato runtii barnaamijku noo sii soconaya dad badan baa noo imaanaya oo wali sugaynaa barnaamijku noo sii soconayo ciyaarihi noo sii soconaya عدلي عدول يا عالبرف علي قادوا يا كلنا عدلي عدول يا عالبرف علي قادوا يا كلنا عذر ما طايع النر قال عذر ورقادي يا عيقو عذر ما طايع النر قال عذر ورقادي يا عيقو وأسوم مدار عمري عيارتي يا شريك كايتما نحسد الأرض كالي وعلى مرتضي نحسد الأرض كالي وعلى مرتضي نحسد الأرض كالي أمانا وعد مدته مركي أنكو دهكابا maanta waa maalin weyn weeye waxaynu u dabaaldegaynaa Canada Day happy Canada Day waa 151 sano marka sidoo kalena waxaynu u dabaaldegaynaa kowdii Luulyo oo iyana ah Somalia's Independence Day anigu magacaygu waa Faisal Hassan waxaan ahay xildhibaanka la doortay xaafadda York South Western baarlamaankan cusub ee 42 saa la socotaana waxa weeyaan xisbiga iyagu waanu jeclaan lahayn inaan dawladda noqono laakiin waxaanu nahay mucaarad xoogan dabcan waxa aanu ku dagaalamaynaa sidii aanu wixii dhibaato ama shar ah ama dhib ah shacabka reer Ontario ku soo wajahan inaan idinka difaacno dawladana aan la xisaabtano marka wada shaqayn doona xaafadeeduna waxa weeyaan York South Western hadda degantiin xaafadaas xafiis aad maartay idinka fogeyn oo u soo lugeyn kartaan oo aan idinku adeegana waa idin furaynaa marka thank you very much thank you Came to say a few words, just to support our community. We are usually never in Toronto, so we're just happy to be in Toronto on Somalia Day and Canada Day. A lot of people think we're American, but we're very proud to be Somali Canadians. We just haven't been here in a while. And we grew up in Dixon, we grew up in this community, and it's just really nice to see how fast the community is growing. Everybody here is like, the future MPs and ministers and mayors, just seeing the development with even Faisal and everything. It's just been amazing. And like the community. Who we voted for? Yes, we voted for. We're just happy to be here and just happy to be a part of our community. And one thing that I think is so important is that I love that Faisal and Ahmed, who's not here, are someone who is representing us, someone who looks like us, someone who's in our communities, and that's something that just makes me happy. And I know that there's going to be more and more of that. And thank you guys. We're just so happy to be here. And we didn't. Thank you so much. Everybody got to sing it together. Everybody got to sing it together. What do we do? Qalaba Alan Ked then. Let's do Qalaba Alan Ked then. Yeah. Okay, everybody together. Everybody Qalaba Alan Ked. 1, 2, 3. Qalaba Alan Ked. Qalaba Alan Ked.
marka calankaana rabaa inaan idin sheego waxaa u taqaaniin kowda luulyo no kowda luulyo waxaa ka horreysay 1943 baa ka horreysay dad baa u soo dhintay oo god ugu jiro ilaa hadda marka kowda luulyo carruurtiina oga sheekaynaya siday ku timid oo looga sheekeeyo 1949 waxaa aasay 13 nin oo walaala ah oo isjecel oo qabiil aan aqoonin nothing marka waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo dadkii u soo hirgamay waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleen now waxay ku haystaan waddankii mal marka waa idin baryayaa carruurtiina oga sheekeeya kowda luulyo keliya u qaadanina aniga hooyaday talyaanigii markii aabbe ee aasaaska jiray toogashuu ku xukumay marka saas waay intaasaan weynay maasha allah thank you so much Sadiisi
And now in Canada, with the passage of Bill C6, we've eliminated two-tier citizenship. And so whether you were born in Canada or you were born abroad, a Canadian is a Canadian is a Canadian, and myself and my son Mahad will be treated equally before the law. Finally, I just want to say one thing. The community is here. It has taken its rightful place in Canadian society. If you go to academia, if you go to universities and colleges, you'll find Somali Canadians. If you go to some of the leading companies in this country, you'll find that Somali Canadians are integral to the operation of those companies. If you look at the culture and the arts and the sports world and everything in between, you'll see Somali Canadians playing a critical role. So I would leave you with one thought, that this is one of the few countries in the world where even before the first generation, you can be an equal participant in society. And now, of course, Canada is not perfect, but we're way ahead in terms of settlement and integration with respect to other countries. So I would urge you with all my heart to seize the moment, to be proud Somalis, but also to be proud Canadians, and to contribute as much as you can and to participate in Canadian society, because it is only through that you can actually succeed in this country and ironically better help and be in a better position to help your homeland of Somalia. Assalamu alaikum, Somalia hanolato, Canada hanolato. Viva Somalia, viva Canada! عوالي عالكينو قادن هرقيسة عوالي عالكينو كارثي عيرف كذا عوالي عالكينو عاصمتنا عوالي مديو عالكينا مديو عوالي أكيسو على زغابيح جبوتي عوالي عالكينو عرقنا عوالي عالكينو قادن هرقيسة عوالي عالكينو كارثي عيرف كذا عوالي عالكينو عاصمتنا عوالي مديو عالكينا مديو عوالي أكيسو رزقيو أباشر قيدا عوالي عوالي مصر أيوي عوالي عالكينا مديو عوالي أكيسو رزقيو أباشر قيدا عوالي عوالي مصر أيوي عوالي عالكينا مديو عوالي أكيسو رزقيو أباشر قيدا عوالي عوالي مصر أيوي عوالي عالكينا مديو عوالي أكيسو I'm proud to be Somali Canadian. Happy Somalia Day. Somalia Hanolato. Happy Canada Day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for our friends from the minister, from the MPP, from both ridings. Thank you for coming celebrating Somalia Day and Canada Day. We as a Somali community were very, very lucky. We immigrated to Canada here and we're celebrating the Somali Independence Day and Canada Day at the same day. What a privilege. Give that high five. هيبات واحد كل ظهر هيبات واحد كل هاد وانا لما هراري اقرني وحقوقه وانا لما هراري اقرني وحقوقه هيبات هالكبات كل ظهر واحد كل ظهر وانا لما هراري اقرني وحقوقه وانا لما هراري
dhammaantiin community leaderska halkan kulligood wada salaamaya waxaan mar dhow intaan idin imanaan salaan idin ka soo qaaday madaxda qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo runtii idin rajaynaya xaflad wanaagsan nolol wanaagsan nabad iyo nolol dhammaantiin waxaan rabnaa inaad ka warqabtaan waddankii sida ugu soo noqon lahayd inaad ku tala gashaan waddankan aad joogtaan oo waddan aad u fiican weeye waxaad ka qabsataan Canada ayaad Soomaaliyana geyn karaysaan waxaa muhiim ah inaad ilaalisaan waddanka nidaamka iyo sharciga iyo wada noolaanshaha wax badan aad ka barataan Canada waxaad Canada ka barataan wanaag aan u rabnaa Soomaaliyana geysaan waxaan idinka codsanaynaa dhammaantiin inaad midnimadiina adkaysaan waxa wax ku tihiin waa Soomaalinimada iyo midnimada haddii aydan mid ahayn haddaydan isku duubnayn haddaydan wax wada qabsan Soomaalinimadiina iyo waxqabadkiina iyo wixiina oo dhan waxaa galaya tafaraaruq baa idin galaya marka runtii waxaan idinka codsanaynaa Soomaalinimada ilaalisaan inaad dhallinyaradan soo koraysa iyo dadkan jiilka cusub aad waddo fiican aad u furtaan inaad wax allaale wixii ummadda kala qaybinayo oo dhan aad iska reebtaan waxaan kaloo idinku casumaynaa dhammaantiin inaad soo noqotaan waxaan idin rajaynayaa happy Canada Day iyo happy Somalia Day dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu safaydo canadaatay dabadood la qabay dooc wixii hadhay hidabka cudurku daawuu yahay lagu dabibay ninba yidhi dadalkan ka qabo dalaga beertayda dabsar baan abuur uga dhigaysay u darartaaye hiwar degdega dabub khayrla iyo doodsan baan helay dayax baa u soo baxay dalkii damugto sarrayda durbaan baan maqlayaa wanaag loo dabaaldegi in daliilku saa yahay waxaa noqon caddaynteeda waddaniga farmaajiyo khayraha dawladdii maanta daadina bilaalaydi nagu naaxday ee dubatay jidhkeenna kuwii dollar nagu iibsan jiray diidnay baan nidhi hidacdi daadka soo daacay iyo moosnay dacalkii carab dalable deel qaafka waa lagu dambaabay in daliilku sayay waxaa noqon caddaynteeda waddaniga la doortee dalkii maanta daadiina
عرضو برواقة ركونا وعقار كسي مياي عدلي عدول يا البرف علي قادود يا كلني عدلي عدول يا البرف علي قادود يا كلني عدلي ما ضيع الر دلعل ورقادي يا ايغو عدلي ما ضيع الر دلعل ورقادي يا ايغو واسو ما مدار على المضي عيارتي يا شريك ايتما عدي عدول يا البرف علي قادر يا كلنا عدي عدول يا البرف علي قادر يا كلنا عدل ما ضيع الر دلعل ورقادي يا عيقو عدل ما ضيع الر دلعل ورقادي يا عيقو وأسوء ما يقترع المضي عيارتي يا شريك إيتما صفيو دل عسليو البعض كودارتي